magaalada Burco ee deegaanada Soomaaliland Burco kulli umada Soomaaliyeed inta badan way taqaanaa ama xarunta gobolka Togdheer mid ka u taqaanaba Burco saaka waxa ka bilowday oo ka dhacay oo ilaa iyo hadda oo inala hadlayana socda dibadbax ballaaran boqolaal qof oo shacab ah isku soo baxay oo wadooyinka waaweyn ku gubaya taageero iyo qashin waxay ka cabanayaan oo ay dadkaasi iskugu soo baxeen Faysal Cabdi Bootaan ma la sii daayo Faysal Cabdi Bootaan ma la sii daayo Faysal Cabdi Bootaan waxa gacanta ku haya maamulka SSC Khaatumo talaabo 18 May ee bishan ay xukuumadda Cabdiraxmaan Cirro doonayso inay u qaado dhanka maxaabiista ay gacanta ku hayaan ee SSC Khaatumo ayay ku dalbanayaan in maxaabiistaasi sideentooda lagala xaajoodo amaba lagu soo daro in SSC-na ay sii daayaan Faysal Cabdi Bootaan iyo maxaabiista tirada badan ee xidhan dhinaca Soomaaliland go'aankii ka soo baxay ayayna shacabkaasi ka hor imaadsan yihiin qalalaasa xooggan baa ka jira magaalada Burco ciidankii iyo waxa israasaasiyay dadkii shacabka ahaa waa la kala cararay wadooyinkii waaweyn waa xidhan yihiin baabuur ay wateen mas'uuliin uu ka mid yahay maayirkii magaalada la gubay xaalad adag baa ka taagan waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale to rabaa mid iyo labo inaan iyadana ka dul istaago siideynta maxaabiista SSC Khaatumo ee Soomaaliland ay gacanta ku hayaan shuruudaha iyo sidoo kale to mas'uuliin ka hadlay ayaan iyadana soo qaadan doonaa hadduu allaydmo soo dhawaado muuqaalka like saaro aragtidiina nugula wadaaga qaybta commentiga aynu ku bilownay magaalada Burco maanta way gubanaysaa markayna leeyahay guryuhu way bad qabaan wadooyinkii baa gubanaya way xidhan yihiin wadooyinka bridge-ka la iskala gudbay daanta kale loo gudbay xiriya askarti baa shacab laga celcelin laayahay oo waxa weeye ay ku sii shacabku ay ku sii didayaan taageeraha wadooyinka lagu gubayaa oo meel walba waxa weeye wado walba lagu dhex gubayaa gaari soconaya iyo isku socodkii magaalada oo dhan baa istaagay arrintan waxay salka ku haysaa go'aankii xukuumadda Soomaaliland laga soo xigtay ahaa 18 May in la sii deynayo in ka badan 700 oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan maxaabiis tirayar oo dhinaca SSC Khaatumo ka soo jeeda oo dagaaladii sool ka socday lagu qabtay oo dhinaca Soomaaliland gacantooda ku jira xukuumadda Soomaaliland ayaa la sheegay inay go'aansatay inay sii deyso maxaabiista SSC Khaatumo ee gacanta ay ku hayaan maadaama SSC Khaatumo iyadoo waxba ku bedelanin shuruud ku xidhin 25 maxbuus ay sii daayeen 16 kalena Puntland ay sii daysay oo halka tirada marka la isku daro dhowr iyo 40 maxbuus oo wax lagaga bedeshay 12 iyo way soo daayeen mooyeene aan jirin la sii daayay waxay go'aansadeen in maxaabiista tirada yar ee gacanta ay ku hayaan inay iska sii daayaan inta markay soo baxday shacabka waa gadoodeen waa kaceen oo waxa la yiri maxaabiista hadii la sii deynayo Faysal Cabdi Bootaan oo xidhan see loo sii deynaa ma Faysal Cabdi Bootaan wada hadal laga galin ma Faysal Cabdi Bootaan la soo deynin ma Faysal Cabdi Bootaan la sii deynin miya maxaabiista waxa weeye la sii deynaya way tollay haween baa iyo caruur baa intay urursadeen baa waxa la yiri waxaan aqbalayno iyo waxaan qaadan karna midna ma aha dibadbaxan marka taas uu salka ku haya dibadbaxyo ballaaran baa ka socda magaalada maayarkii magaalada ama duqii magaalada dadka u taqaanaba gaarigiisii waa la gubay bartamaha magaalada ayaa lagu dhex gubay oo ku basbeelay waliba oo lama daminin askartii soo baxdayna rasaas intay kala daasheen shacabkii oo waxba xakameyn weydii mawjadahan caraysan bay kala carareen oo magaaladii ka baxeen walina mudaharaadkii waa socda magaalada dhan buu ku fiday wadooyinka dhan taageero ayaa lagu gubayaa oo waxa weeye shacabku gubayaan qashinkaas loo ururinaa wadooyinka lagu dhex gubayaa arrinta marka ay salka ku haysana waa sideynta maxaabiistaas oo waxay leeyihiin shacabkan maxaabiistaanadii oo xidhan saraakiishaanadii oo xidhan dadkaanadii oo xidhan ayuu Cabdiraxmaan Cirro doonayaa inuu waxa weeye sii daayo kuwa hartiga ee gacanta ku hayo taasna midaan aqbalayna maaha dagaalka dagaal Soomaaliland buu ahaa waana looga baxay cuqdad iyo waxaan meeshaba hadda ka muuqanin
ayay la soo bixeen oo ay leeyihiin annagaa naloo jeeda maadaama maxaabiista xidhan annaga aan u badannahay intii garxajis la soo daayey habar jeclo ay u badan yihiin habar jeclo waxaa la rabaa in dadkooda la haysto oo la iska haysto habar jeclo